السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سو دواada khiyaarta stepka koowaad waxa waaye in security measureska ama safety measureska lagu dadaalo. Waa ujeeda hadda baashan warning tape-ka iyo boorkaas iyo waatana baasha gacanta ku taagan hadda bacdas jirta waxa la yiraahdaa warning tape of Soomaali waxa lagu yiraahdaa ma aqaano. Marka warning tape-kaas asaas loogu xiraa meelaha khatarta oo in la gala aan la ogolayn ayaa lagu xiraa hadii uu qarax dhaco kala wada aragteen waxa weeye ama meel adoon shaqay ka socoto halka boorka maxaa ku qoran joogso calaamad waxa weeye ha soo gelin gawaarida laga hagayaa. Marka saas markii loo sameeyo maxaa la jiray publicity-ga ama visibility-ga boos meesha waxa laga dhisaayo boos waxa laga dhisaayo shacabku way ka leexanayaan marka baabuurka ma soo galayo qof kalena kuma soo galayo. Marka intaas marka aad samaysid hadii hadda qaybta waa qaybta aan soko waaye qaybta shishanaad ay wataa warning tape-ka waa leeyahay boorkina wakaas aan soo dhaweeyo oo ujeeda. Marka yani wadadan anaga inoo xiranta waay marka horin lagama soo gali karo gadaana lagama soo gali karo waxaan u maleynaa marka inaad fahamteen. Marka waa kana waa la qoday excavation-kii waa la sameeyay. Excavation waa qodaal setting out-kii marka la soo sameeyo oo jeesada lagu soo sawiro kadib waxa la sameeyaa excavation-kii waa kana marka waa la qoday mashiinkaas JCB baa la yiraahdaa ama backhoe yaa soo qoday oo ujeedin. Marka saas markii loo qodo waxa waaye dhamaado waxa ku xiga waxa waaye rockfill in la sameeyo. Marka rockfill-kana waa idin raacanaya haduu Ilaahay idmo. Markii saan markuu u dhamaado excavation-ka contractor-ka ama qandaraas qaataha markuu saan u dhameeyo consultant-iga ayaa hubiyo. Contractor-ka ma fasaxo aslan meesha hadda aan ku hayo kaamirada waa rockfill oo hore loo sameeyay yani lakabkan meesha wadadan ka dhisina wuxuu ahaa meel bearing capacity-geeda uu low ahaa hooseyso sidaa darteed waxaan soo sameynay rockfill oo ka dhagaxaas adag ah idin muuqadan soo dhaweeyo oo ujeeda dhagaxaas adag ama meesha la soo gelin lakabkana 200 mitir ayaa rockfill soo dhigay yani subgrade 1 iyo subgrade 2 iyo labadii lakab waxa looga maarmay rockfill-kaas 50 cm waay. markaas intaasna waan ku sii darayaa. Marka hadii wadadu meesha laga dhisay aysan jilicsanayn subgrade-ka caadi waa loo dhisaa. Marka anaga hadda rockfill baan sameynay oo u taagan foundation-kii wadada ama subgrade-ka u taagan yani road bed-ki iyo subgrade-ka iswato ayaa waxaan ka dhignay 50 mm waxaan rabaa 50 cm ama 0.5 meter ayaan ka soo dhignay oo rockfill. Marka JCB-da markii saan u qodo contractor ku dhameeyo excavation-ka consultant team-ka ayaa hubiyo team-ka dabagalka ayaa waxay hubiyaan level check-ka inspector-ka ama site supervisor-ka ayaa wuxuu receive gareeyaa RFI waa kana rockfill-ka la sameeyay nooca la sameeyay. Marka rockfill-ka la sameeyana kor waxa laga shaqeeyay fine material-ka waa carrakaawo jilicsan waayo oo qayb process hadda waa aragteen carrakaawada waa marka carrakaawada la dhigay waa kana waa la rusheeynaa iyo la rusheeynaa iyo la rusheeynaa iyo waxa taagan waa marka siyaasada loo rusheeyo waxa weeye waa garaacda Christian Paul baa garaacda insha Allah. marka waaliyal soo dhawaada tabarkeeni ayaan dhexda kaga jirnaa Ilaahay idin fududeeyo isku day inaad waxaan aad fahamtiin يعني bit by bit waa inuu kuu sheegayaa حتى لو ورابيو carrakaawo kala lagu dari waa la garaaci yani foundation adag baa la sameeyaa foundation adag waa dhagaxa lagu soo duray fine material baa kor laga saaray fine material-kii carrakaawada ahaa laguma deenayaa biyo lagu shubayaa waa la jilcinayaa waa la garaacayaa ma garat waata hadda baashi backhoe baash mashiinta waxaa la yiraahdaa backhoe ama JCB يعني هورينا waxay ka tahay front loader gadaalna waxay ka tahay excavator yani hooreena waxa lagu load gareyn karaa oo waxa lagu rari karaa gadaalna goodka lagu kodi karaa. Marka waa bahal aad useful waa mashaariicda laga projects-ka iyo minor projects waa loo shaqeystaa shii aad iyo aad waxa marka waa kan hadda just put a small material hey wada biyo kala lagu shubay waa la garaaci ma garateen. marka soo dhawaada walaalayaal Ilaahay idin fududeeyo idinkana waxaan idin ka rajeynayaa inaad bilaari doontiin wax badan aad baari doontiin aqoonta waa la raadiyaa waa la baaraa waa la akhriyaa waa la daawadaa waa la dhageystaa dhammaan si kastoo wax ku fahmi kartaa waxa lagu raadsadaa. anigana waxaan isku dijaa aniga designer nihi macallin nihi waxaan ahay site supervisor marka activity aan qabto waa shaqeeyo waa baasha
pedestrian wall pedestrian wall waxaan rabaa marka wax yar inaan hal point aan ku daro waxaa laga yaabaa you see the shape of our culvert waxaad u moodaa xoogaa inuu yar squeeze yahay sooma inuu yar squeeze yahay la moodayaa laakiin sababta u yeelna marka ku rabo inaan ku sheego sababta u sameeyna waxa waaye culvertiga waxaa laga rabaa inuu parallel la noqdo inuu la sinaado wadada warka soo caadi sooma inuu wadada la sinaado waa u jeedaa halkan line kan follow me also you can see here halkana waa aragtaa waxaad moodaa xoogaa inuu squeeze uu ka yahay sababta u yeelna waxaa laga rabaa culvertiga inuu noqdo mid parallel la ah yacni la siman wadadii aan dhisaynay and then biyaha iyo meelay u soconayaanna designka wuxuuna aadiyey the best position meesha ugu wanaagsan marka culvertiga si guud ahaan asaga squeeze jama gelinay annagoo fiirinayno halka aan ka bixinayno squeeze-ka asaga wuxuu marka noo diidayaa inuu la mid noqdo ama inuu la sinaado wadada halkan marka waa wadada sinaasheeda asagise xogaa squeeze baan gelinay annagoo mar walba ilaalinayno the best position oo ku aadi karo afka culvertiga meesha afkiisa meesha ku aadi karo ayaan waxa weeye fiirinay ayadoo la qiimeynaa diversion road wadadii diversionka ayadoo la qaaday dhexbartikeedii isku aadin ayadoo la fiirinayo slope-ka biyaha ma fahmaysaa hadda marka halkan hadda halkaas kala dhigi lahayn wuxuu ku aadayaa wadada weyn oo la marahay marka waa inaan dhignaa wadada geeskeeda waxaan ka hadlayaa waa wadada aan dhisayna ma ahane wadada kale ee diversionka ayadoo ku soo dhacaysay aan ka hadlayaa marka waa maasantiin bismillahi raxmaani raxiim sidaa dalkan kaga muuqato waxaan soo shubnay shub loo yaqaano blinding waa shub yar oo khafiif ah BCC plain cement concrete shub khafiif ah oo bilaa bir ah oo loogu talagalay cagti hoose yacni meesha shaqo adaga laga qaban rabaa bottom slab baa la samayn rabaa bir baa la xiri rabaa ciidda inay taallo yacni waxaa ugu talagalay surface adag in shaqada lagu bilaabo waa bilowga shaqada waaye yacni concrete works bilowgeeda waaye waxaa ka hooseeyo can you please come closer and my face is clear right waxaa ka hooseeyo hal activity oo muhiim ah halka activity waxaa la yidhahdaa rockfill waxaa waaye yacni waxaa ka horeeyo laba activity oo muhiim ah activity kood waxaa waaye excavation in la qodo after setting out marka setting out la sameeyey in la qodo oo meeshii laga shaqayn lahaa la qodo sidoo kale in loo sameeyo walking space waa ujeeda hadda just you see walking space meel lagu socon karo hadda meeshaan kale aan ku socdo waa walking space baa la dhahaa waa meel lagu shaqeeyo wadadii wataa weyneed waa lasoo kala jaray geeskaasna sidoo kale meel lagu shaqeeyo waay marka lasoo qodo saan loo qodo waxaa la sameeyaa marka rockfillku waa dhagax in lagu guro 30 centimeter ama 300 mm in dhagax lagu soo buuxiyo dhagax marka la soo buuxiyo dushiisa waxaa laga sameeyaa wax loo yaqaan regulating layer carakaabo ayaa la dul saarayaa waa la garaacayaa waxaa loo yaqaan roller not pedestrian crossing waxaa la isticmaalayaa mashiinkaas loo yaqaano pedestrian roller waa roller yar oo double drum ah waa double drum waaye waxaa loo yaqaana pedestrian rolladii weyneed oo loogu talagalay in wadada lagu garaac ma ahan laakiin waxaa waaye waa pedestrian roller bas marka shubkan thicknesskiisa waa 5 centimeter waaye 50 mm balliciisana waa 1.8 culvertiga saan dhisayna waxaa u baahannahay 1.4 1 meter waa entire dimension waaye 20 centimeter waa wallka iyo 20 centimeter another wall isku dar marka 1.4 waaye inta u baahan laakiin maxaa samaysanay 1.8 saa u helno enough
working space fiican oo meel ku fadhiisanayo bottom slabki ayaa loo balaariyay laakiin waxa u baahannahay waxa waaye 1.4 waa maasantiin thank you okay bismillaahir rahmaanir rahiim waxaan ku soo jirnay tababarkeeni ama trainingkii aan ka bixinaynay box culvert waxaan soo diyaarinay birtii bottom slabka iyo wallska oo iswato saad u jeedin meeshaan ku taaganahay birahan ku taaganahay waxa la yiraahdaa binaries ama ring beams kuwan saan u dadban ee soo imaanaya W-da waa ring beams ring bars waaye kuwa saan u baxayana waxa waaye waa binaries ama distribution bars waana bottom slabki rarka kore iyo rarka hoosaba marka birtaan marka muhiim inaad isfac fahamtiin chamfer bars waatana waa mid sameeyay shape-kan waxa la yiraahdaa chamfer bars madaxna waxay kula jirtaa derbiga madaxna waxay kula jirtaa box culvertiga bottom slabka hoose inta ay kula jirto in la mid ah ay kula jirtaa derbigana intaan dhaxana waa qaybta dhaxo idin tusaayay ee sameynayso shape-ka culvertiga marka birtaan waxa la yiraahdaa chamfer bars wata geeskana waa ku safan tahay sidoo kale geeskana waa ku safan tahay wataasa midaana soo hore u sheegay waxa status bars waa birtii derbiga adkeynaysa waaye tan waxa la yiraahdaa distribution bars waa birta saas waxa weeye derbiga u adkeynayso marka waa labadan bir oo derbiga waxa waaye ku samaysmayso marka waa kana sidaan u diyaarinay teamkan waa teamka steel fixers ka shaqeynayo very nice team oo jeeda waa kana derbigi saas uu safan yahay from there up to there and also this is another one from here up to there marka muhiimadu waxa waaye in aad faham birahan ay qaab loo dhigayo horta dhammaan isku size waaye Y10 baa isticmaalayna Y10ka waa enough waaye ku filan tahay designkii meeshan waxa waaye waxa ka sala mari doona la kabiyo shubkan waa shub culus waaye oo hadda bottom slabkan waa 25 cm waaye shub culus waaye kan derbiyada 20 cm waaye kor wuxuu noqon doonaa 25 cm marka soo dhawaada walaalayaal waxaan u malaynayaa wixii aan sheegaynay theory ahaan in hadda aad si fiican u fahamteen oo si live ah idin tusaayo waa kuwana biraha noocaas waaye mid walbana waxay u taagan tahay horaan u sharxay haddana markaan ku celinayaa birahan hoose waa biri celinayay slabki wuxuu isugu jiraan ring bars iyo binaries ring bars waa kuwa saa u wareegayo waaye midaan hoos kore iyo midda hoose saas isugu soo xiran yihiin hal birna waa laga dhigaa oo wareegsan hadda anaga laakiin waa laba xabo U ah oo la soo keenay laba U oo saa la isugu xiray waaye laakiin hal xabana waa laga dhigaa taas waxaa la yiraahdaa ring bars tanna saa dheer ee baxayso waxaa la yiraahdaa binaries bars ama waa distribution bars ma garateen ila fahanteen filaya midaan xagga aadayso iyo tan xagga aadayso waxaa la yiraahdaa chamfer bars wana soo galayaan hoos iska soo galayaan inta waxay ka yihiin shape-kaas oo diagonal ahaan u samaysmayso qaybteedii korona waxay ku xirmaysaa derbiga waa birta marka isku haynayso bottom slabki hoose iyo wallki isku dhajinaysa weeye isla ayadan oo kale ayaa kor saari doonaa si slabka kore iyo wallki derbiga ay isugu hayso waxaan filayaa inaad fahanteen assalaamu calaykum waraxmatullah status barska waa kuwana status bars these are status bars bars yani sida hadda aan u dhigay ayay u noqon doontaa shape-kana waa ka arki doontiin waa u diyaarinay marka qaybtan hoose intaan waxay la gelaysaa weliba meelaha camal waxay la gelaysaa bottom slabki ka mid noqonaysaa qaybtaanna waa qaybta abuuraysay jamfarka shape noocaasa qaybta abuuraysay waaye intaan korona maxay la gelaysaa derbiga gelaysaa marka waa bir isku haynayso bottom slabki iyo wallki waxay sidoo kale create garanaysaa ama ay samaynaysaa shape culvertiga shape-kina way samaynaysaa qaabka jamfarka ayay u samaynaysaa marka birtaana waxaan u malaynayaa waa ila fahamteen dhankan midigtan way ka imaanaysaa dhankan bidixdana way ka imaanaysaa okay waxaan rabaa inaan tuso marka status bars kor baan kala sheegay waa kana
birta status bariska ee darbiyada noqonaysa waa tan oo laba xaba marka tan oo laba xaba waa birta darbiga isku haynayso هذا دائما أمرنا يا أوكي مركز هذا محاول ديار جروبنا preparation for bottom slab كمركز سمينا وين هدي status bars هوسك سوقش وافهم دي سما بلاه هذا عن ديارنا إنه distribution bars بالي هذا وكو دربيه كو هذا عن سوق جريني لوضع حبه قربك كو كمان دونا وحالي هذا distribution bars عارف أنت ما أمرنا يا مركز وحي ثيوري عن كل شيء جنينا ayadoo practical ah waad haystiin aan u malaynayaa soo dhawaada insha Allah taala waxaan noo xigi doono shubka markaan shubayno oo hadda waxaan soo diyaarinay birihan ku wadnaa shaqada socoto waxaan noo xigi doonto casting concrete for the bottom slab ka anagoo shubayno asla arki doona insha Allah assalaamu calaykum warahmatullahi wabarakatuh qaybtaana waa shubkii bottom slabka iyo wallska qaybtooda hoose hadda waxaan shubaynaa bottom slabka iyo qaybtii hoose wallka marka si fiican u qaabka u shubayno shubka la isticmaalayo waa C-Cat waaye concrete oo adag oo culus waaye oo loogu talagalay meelaha heaviga ah oo waaritaanka xooggan laga rabo marka mashiinka noo shubayo waxaa la self loaded machine waa mashiinkaas waaye asaa wixiisa qasto asaa shubto marka soo dhawaada walaalayaal waa fahamteen birta iyo qaabkii u shaqaynaysa haddana waa u shubki bisa kan xiga ama qaybtan labaad ama qaybtan waxaa weeye afraad baan dhaho waxaa soo samaynaysa tanaawad excavation rock fill blinding concrete preparation for bottom slab shan activity hore usoo marnay kan marka qaybta lixaad waayo oo ah shubkaas in la shubaayo waxaa la jiray bottom slabka iyo wallka qaybta hoose waka alwaaxas waa janfa baariskii meesha ay galayeen waxaa weeye janfarka abuurayay marka sida walaalayaal shubka ayaan idin kala baxayaa waxaan u malaynayaa sunnada si fiican u fahmi waxaa ugu muhiimsan marka intaan la shubin ka horna waxaa la xaqiijiyaa foamwaaga inuu adag yahay oo supportskiisa ay adag yihiin vertically horizontal and inclined all supports inay adag yihiin waxaa weeye alignments inay saxan yihiin steadnesska baagaa loo helaa inay toosan yihiin marka waxyaabahaas oo dhan baa la hubiyaa annaga waa soo hubinay markaa adagii waa dirinta carburetor baa la gelinayaa qasab waaye carburetorka carburetorlaan mada shaqeynka shubkaan C-Cat waaye marka oo jacayl soo dhawaada walaalihii qaybtana baara oo xog badan ayaan kala السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلامي يا دمان خيارتا كحرا تبابركي أن سو ودني أما لسعوتي تبابركي خيارتا كحنا تبابركي أن سو سمينيني كوساب سنة باكوس كالفرت ما أنت إيه شقدان هينو وحواية أنت أن هوسك سو قبني بطم سلابك هوسة يا وولسك وقيمة كبلوني إنا أنت وكلا قرآن كسمينا مدامو يا بوكس وحنا سمينا إنه أنت أن هوسك سو قبني وكلا يا ما أنت كرلا قد يارنا يا لكن ماشي هذا كنت هاي وفوم واجي بوتم حارة توب سلاب كويان مركا قيبتان وحين نقول دونتا وولسكي سيدو كلا قيبتان ووولكي هل كان كنت هاي وتوب سلاب كروات وأصلا عن صوشة جناي بوتم سلاب صماهين this now حاوي وتوب سلاب توب سلاب مركا سانو حوي هاي أفرتن كان فركيوان سمينينا بريه هوس عن صوري ماي أو كلا هدنا لا ديغايا status bars sidii hoos ka ahaayeen oo kale ayaa haddana kor laga sameeynaya waxa la geyn doonaa janfa bars status bars oo ku taagan yihiin binary exam loo dhigi doonaa waa kana plywoodkooda waa soo jaray marka si fiican u fiiriyo waa kana shaqada noocan loo sameeynaya let me try to show them waa kana u jeedaa qaybtan kore sidaan ayaa u sameeynay halkan wuxuu noqon doonaa meesha uu ku fadhiisanay marka alwaaxa meesha ku fadhiisanay waaye faras iyo barfeelo waa leeyahay faras midka hoose waaye barfeelona midkan kore waaye يعني وحاول واو إسلاب يرو محل دي إسلاب يدك الله سميه وكلا عادي الله سميه واي status bars كوانا distribution bars وكسي حرينهين
يعني انت هوس aan kusoo sharaxnay oo kale uma kor rosh meeshan waa meesha ay ka soo bixi doonaan status bars labadan geeskan iyo geeskan kale waan arki doontiin insha Allah taala marka birta la dhigo waa idin tusi doonaa waa kana foom waajib hadda la diyaarinayaa sidaas ila socdo walaalayaal ilaahay waxaan ka rajeynayaa inuu si fiican idin fahamsiiyo waxa aan sheegay inaad fahamtiin baan rajeynayaa hadda alwaaxan hoos waa laga fujinayaa korna waa la keeni doonaa kor waa ka hadda midka hoose waa la soo geliyay qaybta hoose waa kana alwaaxan waa la soo fix gareeyay oo ujeedaa hoos la soo geliyay korna asaga ma kor loo qaadi doonaa kii hoos aan ka shubanay baa kor loo qaadi doonaa marka soo dhawaada idin leeyahay insha Allah taala waxaan isku dayayaa tilaabo kastoon qaaday inaan idin tuso ilaahay idinkana ha idin fududeeyo waxa aan sheegayana Allah idin fahamsiiyo marka dadaal hala dadaalo walaalayaal aqoontu waa muhiim in waxaad fahamto waa muhiim waliba gaar ahaan ardayda jaamacadka dhigto ee hadda wali ku jiro waxbarashada marka iyo technical engineerska marka shaqada hayo waxaan kale waxa laga yaabaa inay ku soo marto oo qaab u dhista aqoon weydo marka hadda dee ka bogo Allah ku fududeeyaan ku leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh halkan waxaan ka bilownay birtaas beam seat bars baa la yiraahdaa marka taas oo kale waa lagu soo wadi doonaa markii gebigeedba halkan wuxuu yeelan doonaa approach slab kaasna waxa isku xiro birtaas beam seat bars ka la yiraahdo wayno taala waa inta si doonaa daa idin tuso beam seat bars ka idin sheegay waatana design kana waa in ku tusay waatana birtan waaye yani birtan waxay isku xireysaa approach slabki oo sameyn doono iyo wallka hadda ayay isku xiri doontaa dhamaantood waxa weeye 15 state isku jirtaa waa bir 12 ah kuwa hore waxay ahaayeen birahan status barski iyo binaryski waa diyasho weeye tan waxa waaye waa doodisho 12 marka waxa waaye soo dhawaada walaalayaal ayadoo ku wada xirnayna waa idin tusi doonaa insha Allah عليكم ورحمة الله وبركاته هذا waxaan soo gaarnay in la shubo top slabki kore ayadoo oo wato qaybtii isku xireysay approach slabka iyo culvertigi this box culvert waxa inta laga dhisi doonaa approach slab ku xirmaaya kan marka biraha si fiican u soo sharaxay waa taantii ma malaynayaa waxa halkan zaid ku birtan weyn oo 16 ka waxa la yiraahdaa dual bars ayaa la yiraahdaa waa tan birtaas dual barska ayaa lagu taxay afaantay ma malaynayaa also dhankan kalena way kaga taxan tahay marka dual barska waxa loo sameeyaa dual bars waxa la yiraahdaa birtan weeyaan taagan saa ugu wada taxan dhamaantii geeskan iyo geeska kale marka tan waxa way beam seat barka hoose ee saxnayd tanna waxa waaye waxay isku xireysaa ama interlock oo sameeysa approach slabka laga dhisi doono halka ay sameeysaa laakiin box culvert hadda wuxuu u diyaarsan yahay in la shubo top slabka beam seat barska oo jumper barska soo galeen beam seat barska oo ama display barska meesha soo galeen sidoo kale oo si loogu xiro approach slabka marka waa kana diyaar way hadda kol dhow insha Allah taala waa la shubi doonaa marka soo dhawaada waxaan ugu soo ziyaadiyay birtan loo yaqaan dowliska birta 16 taaganaysa oo safan weeye isbaagada ka hooseyso birtan dowliska waxa loo geliyaa for better anchorage inay si fiican isku xirto approach slabka iyo box culvertiga ayaa loo sameeyaa taas